baaritaanka dambiyada xagga xukuumadka oo si joogto ah u wata shaqadooda iyagoo soo gudaha xukuumadda Jabuuti mudane Xasan Omar Burhaan taliyaha ciidanka booliiska Jabuuti Colonel Abdullahi Abdi Farah taliyaha ciidanka militariga iyo dhammaan madaxda amniga saraakiisha taliyaha dhammaan marti sharafta halkan isugu timid waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan sidoo kale si gaar ah u salaamayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ciidanka ka tirsan dugsiga Nagaad mudanayaal iyo marwooyin waxaa farxad gaar ah ii ah inaan idinkala soo qayb galo maantay xafladan tababarka loogu xirayo cutubkii 7aad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska aanu bilownay qorshe ka bedelan qorshihii hore 2003 mar aanu tagnay dalka Talyaaniga sidaad ogtihiin tababarkan waxa uu ka mid yahay tababarada isdaba jooga ee loogu qabto dalalka aanu saaxiibka nahay oo ay ugu horeeyaan Jabuuti had iyo jeer nagala garab taagan hiil iyo hooba iyo ciidanka Karbiyeeriga ee maanta xafladan nagala soo qayb galay taliyahooda General Tulio de la Sete mudanayaal iyo marwooyin sidoo kale anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle taageerada uu markasta la garab taagan yahay Soomaaliya taasoo ah mid taariikhi ah taariikhda xusi doonta waxaan kaloo u mahad celinayaa shacabka reer Jabuuti iyo dowladooda sida ay uga qayb qaateen xasilinta amniga walaalahood Soomaaliyeed ayagoo ka soo diray wiilashoodii meesha tan ayna tageen Soomaaliya wiilal iyo gabdhaba loona bixiyay heel walaal runtii meesha ay tageenna waxay ka soo jiideen ammaan aad u sarreysa oo ah dhul aad u weyn iyo nambarka ay ku tageen marka loo fiirsho ciidamada kale amniga noogu yimid waxay runtii aad uga tilmaaman yihiin ciidamada dhammaan ka howlgala dalka Soomaaliya xilligan waxaan runtii indhayga soo saaray sida ay shacabka u taakuleeyaan sida ay dhismayaashii dowladda u soo cesheen sida ay iskood isu xilqaameen oo ayagu waxa jeebkooda ka imaanaya iyo waxa ay dowladdooda ka helayeen intaba ay shacabka ugu adeegeen taasina waxay noqotay mid taariikh fiican ku reebta ummadda Soomaaliyeed sidaad ogtihiin tababaradu waxay ka mid yihiin waxyaabaha aasaaska u ah tayeynta ciidanka iyo kor u qaadidda dhismaha ciidanka iyo dib u habaynta muddadii burburka aan ka soo noqonnay waxaan xasuustaa 2000 waxaan imid shirkii Carte maalintaasay u bilaabatay ilaa iyo hadda dowladda Jabuuti iyo shacabkeeda iyo ciidankeeduba wayna garab taagnaayeen sidaa awgeed waxaan idinku bogaadinayaa sida wanaagsan ee aad u dhamaysateen tababarka ciidankan hadda dhamaystay idinkoo ka wakiila ummadda Soomaaliyeed ee aad dhammaantiin u dhaarateen waxaana idinka saaran waajib ilaalinta sharciga idinkoo si habsami ugu adeegaya ummadda una hagaajinaya shuruucda iyo awaamirta madaxdiina iyo soo celinta nolosha bini'aadanka ee aad mas'uulka ka tihiin ummadduna idin idmantay ugu dambayntii waxaan mar labaad si gaar ah ugu mahad celinayaa dowladihii suurtageliyey qabsoomidda tababarkan qiimaha badan gaar ahaan dowladda Jabuuti iyo dowladda Talyaaniga sidoo kale waxaan u mahad celinayaa taliyaha ciidanka booliiska Jabuuti gaashaanle sare Abdullahi
cabdi faarax oo mar walba si hagarlaana u garab taagan dib u dhisidda ama dib u hagaajinta ciidanka Soomaaliyeed iyo taliyaha dugsiga tababarka magaad gaashaano dhexe cilmi daahir migil iyo barayaasha nadiifayaasha kuwa cuntada kariya iyo dhammaan inta ka shaqaysa kulliyadda nagaad suurtageliyena inay qabsoomaan tababaradan isku xigay oo ahaa heerar kala duwan waxaan ku soo gabagabeynayaa anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan mar labaad inaan shacbi weynaha Jabuuti iyo madaxweynahooda ugu hambaliyeeyo xuska maalinta xorriyadda oon soo horumarsanayo maadaama aan halkan joogin 27-ka bishan waxaan sidoo kale u hambaliyeynayaa ciidanka militariga oo habeen hore ay ahayd xuskoodii waxaan u hambaliyeynayaa ciidanka booliiska Jabuuti oo dadaal weyn u galay runtii dib u dhisidda iyo ciidanka Karabiyeriga oo u dabaaldegay ayaguna 5 Juun dabaaldegay sanadkoodii sanad guuradii 203aad ee ciidanka Karabiyeriga mudanayaal iyo marweyn anoo ka wakiila ummadda Soomaaliyeed runtii iyo mas'uuliyiinta madaxweynaha mudane Farmaajo iyo ra'iisul wasaare iyo xukuumadda iyo golayaashaba waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ummadda Jabuuti iyo mas'uuliyiintoodu iyo ciidankooduba ay noo garab istaageen sidoo kale waxaan mar labaad mahad u celinayaa dawladda Talaaniga iyo dhammaan inta u heelan inay dib u dhisto ciidanka Soomaaliyeed waana mahadsantihiin waxaa ii farxada maanta in halkaas ku nimaadno inuu u dabaaldegaynaa soo celitaankii xafladdii loogu talagalay tababarkii 7aad ee loo fidiyo dhalinyarta Soomaalida waxaa kaloo halkaa mahad ugu celinayaa janaqalka xukuma ciidanka Karabiniga Talyaaniga kaasi oo noo asmaxay aniga iyo walaalkay Saacid markuu aan ugu tagnay Roma isagoo nagu qaabilay guri aad u qurux badan oo taariikhiya in ay hirgasho ama aan hirgelin karno tababarka noocanaya ee Jabuuti ka dhacaya ilaahayna la qabay waa taa waxaan soconnaa kooxdii 7aad taqriiban waxay noqonaysaa ilaa 3,000 iyo in ka badan oo askar Soomaaliya oo halka lagu tababaro waa ilaahay maadi c'est toujours difficile quand on arrive au moment de se séparer mais la nature est ainsi faite et quel que soit le couple formé on finit un jour par se séparer effectivement toute séparation crée un ressentiment de douleur. Vous êtes la septième promotion a chi j'ai dit au revoir ici intervenute e ai gentili ospiti, in particolare agli ambasciatori dell'Unione Europea russo e tedesco, al rappresentante diplomatico degli Stati Uniti, ai comandanti di contingente francese, spagnolo, giapponese, al vicecomandante americano, agli addetti militari di Francia e Russia e un saluto caloroso al colonnello Spaziani, comandante della base italiana che ospita i Carabinieri. La presenza del comandante generale dei Carabinieri per la seconda volta è segno d'altra parte dell'importanza che l'Arma annette a questa esperienza e della considerazione che ha per il lavoro di questi uomini, di queste donne, che continuano a onorare ogni giorno sul campo gli alamari che indossano. Ho qui la possibilità di verificare personalmente il risultato del lavoro svolto dai miei carabinieri. So che anche questi 3 mesi, il periodo di durata dei corsi che oggi si chiudono,
sono stati caratterizzati da reciproco impegno e da intensa collaborazione tra italiani, gibutini e somali, a ogni livello di coinvolgimento, in piena condivisione di obiettivi e in proficua sintonia d'azione, con la massima soddisfazione vostra e nostra. waxaan mahad ku celinaynaa dhammaantood guusha ay gaareen. waxaan rabaa in beritoole waxaan ay barteen anfici doono markay shaqo galaan. Consegnano l'attestazione di merito le autorità presenti. On va procéder à la premiation des instructeurs de l'académie qui ont participé à l'entraînement. Vont remettre les attestations de mérite les autorités présentes. hadda waxaa la guddoonsin doonaa shahaado sharaf macallimiinta dugsiga tababarka ciidanka booliska qaranka ee Jabuuti. guddoonsiinta shahaadooyinkaas waxaa u xilsaaran madaxda halkan joogta. Les témoignages chrétiens de l'autre sont signés pendant le cours. Ces certificats seront remis par les autorités présentes. Savito, Marguerite, Marguerite, Salah. ساكن من